ilmahaygi gurigayga iska fadhax fadhiya inaa gurigayga la igu soo galo oo dhacda meesha lagu fuliyo gurigayga gadaashiisa inuu ciidan fadhiyo aan go'aan ka qaatay inay dadkaas gadaasheeda ciidankaas fadhiyaan ay waxba ay gaaran ani ilmahay aan isku dhigno oo dhaabasan ilmahay uu soo gaar walaasheedana ay ku dhimato maasha Allah waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo dhaawaceedu cusub haween aan ka seexan karin oo igu dhabiibeen maanta dawladdeena Soomaaliyeedna garab igu siisay hay'adeedana garab igu siisay madaxweynaheena meel alo meesha uu joogo codkayga dhawaaqiisa oo gaarayo waxaan maanta aan igu dhacayn oo ku qanacsanahay ana ilmahayga iyo aabihii ilmaha igu shaqeynay aniga aan wada dhaawacnahay oo guri ku xareysanahay oo shaqeysan karin waxaan u maxad celinayaa wiil kale magaciisana aqaan la dhaho xildhibaanka oo iga soo waday anigoo joogo isbitaal Digfeer oo leegu heesto lacagtii leegu daaweeyay bixisi dawladda hay'adaha amniga ilaa iyo ra'iisul wasaaraha kollay qof reer baadiina waa iska ahay waxaad yeeshiin intaan gafa igu dulqaataa maama Khadiija diiriye boqolkiiba boqol way mahadsan tahay hooyooyinka Soomaaliyeed waxay wadanku weeyo la'aantoodana hool ma qabsanto waa maamooyinku nagu dhiirigeliyo wax walba oo dhacda walaalahayga Soomaaliyeed gabdhaha iyo wiilasha waxaan u sheegayaa far kaligeed fool ma dhaqdo laakiin farkiish way ka bixisaa waxaan leeyahay shacabkooda istaaga fadhiga ka kacaandihiina fura waa fadhisiin shacabkooda naafeeda maasha Allah maanta waxaa loo qaadanaynaa farxadda meeshan ana maanta leegu qabtay maasha Allah dad weyn oo xildhibaanayaasha kamid ah madaxweynaha ra'iisul wasaare duq magaalada Muqdisho oo maanta hor taaganahay maasha Allah waxaan leeyahay soo dhawaada haweenka iyo wiilasha Soomaaliyeed gabdhaha yar yarba inay ku soo daydaan maama farxiyo inay ugu soo daydaan ayaan rajaynayaa waxaan kale noogu sii darayaa oo meeshaan aan u taaganahay maanta anoo ilmahaygi gurigayga iska fadhax fadhiya inaa gurigayga la igu soo galo oo dhacda meesha lagu fuliyo gurigayga gadaashiisa inuu ciidan fadhiyo aan go'aan ka qaatay inay dadkaas gadaasheeda ciidankaas fadhiyaan ay waxba ay gaaran ani ilmahay aan isku dhigno oo dhaabasan ilmahay uu soo gaar walaasheedana ay ku dhimato alxamdulillah ilaahay baa u sugnaatay wax calool xumo ka qabo ma laha qofka dhinta waqtigiisa ayaa soo galay anigana xilligaygaan sugayaa wixii maanta oo igu jirana ilaahay ay caafiyo intii dhimatana ilaahay iga naxariisto alxamdu lillah shukru